Assalaamu calaykum saaxiibayaal isku soo noqod wanaagsan. Muuqaalkan waxaan ku baran doonaa ilaa 3 qaab ilaa 4 qaab aad website haddii aad leedahay ama haddii aad samaysato aad lacag uga samayn karto insha Allah. Sidoo kale waxaan ku baran doonaa qaabka markaa domain iyo hosting-ka loo raqiisiyo, taasoo inta badan ay shirkaduhu sameeyaan, marna ay qaaliyeeyaan marna ay raqiisiyaan dabcan. Muuqaalkan ayaynu ku baran doonaa hadduu alayn. Sidoo kale waxaa loogu baahan yahay ma aha domain oo keliya balse waa domain iyo hosting. Muuqaalkan ayaynu ku baran doonaa qaababkaas oo dhan aad uga faa'iideysan karto. Sidoo kale qaab ka mid ah inta badan waynu naqaanaa inaga oo markaa websiteska lacag lagu sameeyo, taasoo ah Google AdSense. balse inta badan ma naqaano qaabka ugu muhiimsan oo loo yaqaano digital marketing, taasoo ah inaynu alaabo markaa websitekeena ku promote garano dabcan. Insha Allah muuqaalkan ayaynu ku ogaan doonaa. Sidoo kale saaxiibayaal haddii aad nagu cusub tahay fadlan waxaan kaa codsanaynaa inaad channelka subscribe garayso, muuqaalkana aad like saarto. Inta badan waxaan soo gudbiyaa arrimaha markaa tiknoolajiyadda la xiriirta hadduu alayn insha Allah. Okay, haddii aan bilowno stepskeena ugu horeeya. Stepska ugu horeeya wuxuu ka bilaabanayaa qaabkan. Insha Allah muuqaalka waxaan ku qeexi doonaa ilaa iyo dhowrkan qaab aynu ku qeexi doonaa. Marka koowaad, website haddii aad leedahay aad samaysato waxaad aad ka faa'iideysan kartaa inaad website-kaaga articles markaa ku qorto, kadib aad AdSense u dalbato, AdSense-ga markaa website-kaaga la soo saaro dabcan. Kadibna xayeysiintaas qof walba oo arkaa ama qof walba oo kali gareeya aad ka faa'iido lacag aad u badan insha Allah, taasoo ay ku xiran tahay location-ka markaa website-kaaga laga soo booqanayo. Okay, sidoo kale waxaan muuqaalkan ku baran doonaa domain iyo hosting. Domain iyo hosting oo markaa dabcan dhalinyarta qaarkood ila soo xirtay oo martaana qiimo sare u sheegay dabcan. Okay, sidoo kale saaxiibayaal muuqaalkan waxaan ku baran doonaa kambaniyada markaa digital marketing ah kuwa markaa ugu fiican uu kamid yahay Digistore. Halka Clickbank uu yahay isaguna mid wanaagsan oo weliba Digistore ka fiican, balse Soomaaliya uusan accept garayn dabcan. Sidoo kale waxaan ku ogaan doonaa labadan company waa laba company oo markaa alaabtooda aad promote garayso ama markaa aad qof iibsado waxaad ku helaysaa commission aad iyo aad u badan, kaasoo gaari kara ilaa $200 ilaa $250, taasoo ay ku xiran tahay alaabta qiimaheeda. weliba markaa qiimo aad iyo aad u wanaagsan lagu siinayo shaygii oo boqolkiiba percentage-ka meeshii company-gu uu qaadan lahaa lacag badan, adiga percentage-kii badnaa adigii qofka keenay lagu siinayo. Sidoo kale waxaa jirta company-ga Amazon Associates ee loo yaqaana, waxaa iskale company-ga Amazon weeyaan dabcan. Okay, Amazon iyada waxa weeyaan dabcan waxa ay ku siinaysaa percentage yar. Tusaalahaan oo kale laptop ayaad soo iibisay ama mobile ayaad iibisay ama computer ayaad iibisay ama hard disk ayaad iibisay, waxaa lagu siinayaa isagana percentage. Tusaalahaan oo kale 4%, 3%, 2%, 1%. maalinkii imise ayaad iibin kartaa, imise alaab company-gan Amazon ku jirta ayaad promote garayn kartaa, imise ayaad Digistore ku promote garayn kartaa website-kaaga. Sidoo kale imise article ayaad soo qori kartaa oo kaasoo ay dadku xiiseynayaan oo markaa website-kaaga ay booqan doonaan, kaasoo ay xayeysiinta hadday kala gareeyaan markaa aad adiga wax ka faa'iido. insha Allah waxaan ku bilaabi doonaa Google AdSense. Okay saaxiibayaal, sida arkaysaan halkan dabcan waa Google. Hadda halkan haddaan ku dhufto waxaan ku dhuftay tusaale ahaan oo kale waxaan ku dhuftay warka ama sheeko oo kale ayaan ku dhuftay sheeko. Okay, waxa ay soo baxay website aad iyo aad u badan kuwaasoo ay saaran tahay mataqaanaa loo yaqaano AdSense-ga. Hadda website-kan oo kale ka mid ah website-kan oo kale waa website ka mid ah website-yada markaa sheekashada, balse waxa uu saaran xayeysiin taasoo uu website-kiisu qofka shakhsigan iskale lacag ka faa'iiday. Muxuu ku qoray sheeko iyo wararkii u dambeeyay ayuu ku qoray dabcan. Tusaalahaan oo kale haddaad eegto dadkan aad arkayso maalin walba soo qoraya warkii u dambeeyay ama sheekadii u dambeysay dabcan waa dad ku xisaabtamaya markaa income website-kooda kasoo xaroonaya dabcan saa arkaysaan. Okay, sidoo kale hadda website-kan oo kale xogaye dabcan saa arkaysaan waa website kamid ah markaa website-yada aynu ku baranay sida markaa loo qoro postiska ama articleska ama website WordPress loo sameeyo dabcan. insha Allah qaabka markaa website-ka loo sameeyo waa kan dabcan website-ka ku baranay. qaybta playlist-ga ayaa tagaysaa insha Allah, kadibna saa arkayso waa maxay
WordPress website insha Allah website kan aynu ku baranay dabcan waa arkayda AdSense soo aqbalay qofka iskalena markaa uu lacag ka faa'iideeyay dabcan qof walba uu kali gareeyo oo markaas san oo kale u boqdo haddii aad aragtay yani wararka yani qof walba oo markaa yani Google wax ka raadiya waxa ku soo baxaya yani website aad iyo aad website-daas mid walba oo kamid ah waxa uu ku tiirsan yahay يعني inuu lacag ka faa'iido dabcan hadda website-kan oo kale haddaa ku dhufato dabcan isa arkayso yani website-ka waxaa kale oo ka faa'iidi kartaa in marka aad ku xayeysiisid shirkadaha loogooyinkooda yani mataqaanaa hadda aad isa arkaysa Daisy يعني inaad markaa yani ku xayeysiisid shirkadaha loogooyinkooda dahabshiil ama mataqaanaa taas inaad uga faa'iidaysid website-kaagana iyadana waa mil yani waa lacag kale oo gooniya dabcan okay يعني واتن ساركسان يعني ادس يعني mid waxa weeyaan ina website-ka shirkadda Google AdSense ay ku soo saarto xayeysiin iyo mid adiga xayeysiin aad leedahay marka website-kaaga yara caan noqday aad aragtay in marka shirkadaha aad lacag kaga qaadato kaasoo aad u soo saarayso banner ahaan ama warqad intaad u samayso aad u soo saarayso course dahabshiil ama yani company-ga marka aad heshiiska la gasho okay horta qaabkaas oo dhan waad uga faa'iideysan kartaa insha Allah website-kaaga taasna waa lacag samayn kartaa hadda Google haddaad ka raadiso yani wax walba oo aad Google ka raadisid ama erey walba oo Soomaali oo Google ka raadisid website walba waxaa saaran xayeysiin Google AdSense iyo waxaa saaran yani banner yani in mataqaanaa yani shirkad heshiis la gashay taasoo marka aad ku xayeysiinaysid labada qaab waa labada qaab ugu wanaagsan marka aad uga faa'iideysan kartid website-ka hadda bilow website-ku waa ganacsi caadi maaha yani maaha inaad maanta iskadiis waa website-ku waa ganacsi caadi haddii aad maanta 6 bilood ugu horeysay aad dadaal samaysid waxaan aaminsanahay 6 bilood wixii ka dambeeya in bil walba ay kaaga soo xaroon doonto lacag $500 ka badan inay kaaga soo xaroon doonto ayaan aaminsanahay insha Allah wax walba internet-ka ana waa joogteen iyo juhdi iyo dadaal haddaad maanta beerato geed insha Allah waa uu ku soo go'ayaa biri waa sida ay ka dhigan tahay soo kale okay saaxiibayaal haddana waxaynu soo eegi doonaa qaybta labaad insha Allah haddii aynu qaybta labaad yani waxaan ku sharxi doonaa wax loo yaqaano domain iyo hosting-ka waxyaabaha u baahan tahay faa'iidada website-ku u leeyahay qaabka aan heli karo domain iyo hosting yani raqiis ah oo qiimo jaban insha Allah waa maxay domain iyo hosting waxaas oo dhan aynu muuqaalkan ku sharxi doonaa horta waxaan hadda soo sharxnay Google AdSense in website-ka aad kaga faa'iideysan kartid Soomaaliduna kaliya ay taqaanaan Google AdSense oo yani in yar ayaa taqaan dabcan kana faa'iideysta dabcan okay in marka alaabaha mataqaanaa yani shirkadaha Soomaalida aad ku promote gareyn karto banner-ada ka soo muujinaya kaga faa'iideysan kartid maadaama sharxno qaabka marka website-ka looga faa'iideysto lacagna looga sameeyo okay maxaa u baahan tahay domain iyo hosting domain waxa weeye waa .com .net .org tusaale facebook.com inta magaca dalka raacaysa weeyaan domain waxa weeyaan .com .net .org soo kale .com-ka ayaana ugu wanaagsan soo kale hosting waxa weeyaan website-kaaga daatada oo ku qaadala soo mobilka storage u leeyahay marka mobile iibsanaysa dhaysi yani mobilka storage tail la eegyahay ayaa domain-kuna wuxuu leeyahay storage soo kale waxa loo yaqaanaa storage-kaas hosting website aan hosting lahayn website maaha soo kale marka walba aad doonayso inaad WordPress isticmaashana waxaa khasab ah shirkad walbana ay ku qaaliyeysaa hosting-ka shirkaduna isku yani qiimo ma aha dabcan insha Allah way kala qaalisan qaar baa $100 qaar baa $200 qaar baa waxay yihiin $40 waxaa rajaynaa insha Allah balse waxaa jirta muuqaalkii ka horreeyay oo ahaa sida markaa website loo sameeyo ku baranay shirkad raqiis insha Allah qof walbana markaa yani uu samaysan karo awood dabcan run ahaantii lacag intaa ka badan ayaad kaa soo galaysaa dalan soo kale waxaynu soo sharxi doonaa qaybahan oo dhan balse insha Allah dhalinyarta markay soo wejisay shirkadda markaa yani samaysa marka qaarkood shaqadu waxay sameeyaan adeegyada ay isdoomariyaan balse mar walba discounti waa u jira oo yani qiimo dhimis waa samaysan kartaa balse waa sir qofkii fahma kaliya ayaa garanaya dabcan insha Allah okay sida arkaysaa saaxiibayaal course aad ku baranayso website dhammaystiran iyo sida marka alaabaha loo promote gareeyo oo looga faa'iideysto digital marketing adigoo iska diiwaan gelinaya markaa company marka qaarkood ugu wanaagsan alaabaha promote gareyn karto muuqaalkan aad ku baran doontaa waliba waxa aad ku samayn doontaa muuqaalkan marka aad daawato yani website-kan oo kale yani website-ka waxaad kaga faa'iideysan kartaa saan ku lahaa in marka yani articles aad ku qorto in qof walba markuu soo boqdo clickta oo click gareeya aad ku qaadato 10 senti ilaa 10 senti 30 senti 60 senti $1 dabcan iyadoo ay ku xiran tahay location-ka marka uu ka soo booqanayo dabcan saa arkayso website-ka qof walba ku soo booqda oo marka yani waa faa'iido dheeraad soo kale waxaad ku promote gareynaysaa yani qofkii soo booqdayna article waxa uu qoraysaa yani alaabta uu raadinayay ama yani waxa uu daneynayay adoo website-ka u kala qaybinaya
qaybo kala duwan dabcan su'aalaha kale waxay kala qaybinaysaa inaad ka hadasho yani blog qayb Soomaaliya inaad ka hadasho qayb digital marketing inaad ka hadasho balse inaga Soomaalida kaliya waxaan naqaanaa yani inaan war kaliya aan qorno dabcan ayaan kaga faa'iideysanaa balse waxaad uga faa'iideysan kartaa inaad alaabaha ku promote garaysid alaabaha hadday ahaato Amazon alaabaha Digstore yani aad ka qorto haddaad ka waran qorto maalin walba ilaa 3 article bishii imisa kusoo boqon kara waxay ka dhigan tahay qofku markuu Google wax ka search gareeyo ama alaab ka search gareeyo interest ayaa ku jirta yani qofkan uu xiiseenayo inuu alaabtan iibsado mar walba ay ka go'an tahay balse ka waran yani website-ku wuxuu caan ku yahay Google wax laga search gareeyaa wax interest qofku yani uu xiiseenayo balse Facebook hadaad u qaadato kawan Facebook ad hadaad u qaadato ama Google ad hadaad u qaadato xayisiin qofkii aad sin kaga geliso wax uusan doonin markaa aad sin gelin soo tusaalahan kale ninkan yani qofkan shakhsigan Google ad yani halkan oo kale ayaa la soo saaraya alaabta xiisiinaysid tusaale kale halkan la soo saaraya ama hotel aad degisid ama yani alaab iibsanaysid balse qofkii interest ma balse qofkii marka adiga website aad u samaysato aad leedahay kadibna aad wax ka qorto qofkii uu akhrisanaya dhigay uu markuu qanco uu iibsanaya haddii 200 oo views ay ku daawato maalinkii article-kaas aad soo dhigtay طبعا 3 ilaa 4 ilaa 5 qof oo kamid ah waxa yani ka dhigan tahay inay iibsadeen dabcan adigana halka aad ku qaadatay ilaa $150 oo lacag haddaba sida markaa muuqaalka waxaan ku baran doonaa sida domain iyo hostingka loo jabiyo insha Allah ayaan ku baran doonaa hadduu alla idmo soo kala qaybahan kalena insha Allah waa aynu baran doonaa muuqaalka ayaan soo doonaa marka doonayso domain hosting ina yani jabiso muuqaalkan hadda aad daawanayso ayaa taqaana yani waxaan ku soo dhigi doonaa labada link ayaad ku eegi doontaa insha Allah okay linkiga koobaad waa linkigan dabcan hadduu ku dhawo qiimaha mataqaana ilaa $59 meelahaas ilaa 100 hadduu ku dhawo dabcan يعني waa iska deynaysaa linkigan balse waxaad isticmaalaysaa linkiga ka hooseeya hadduu qiimo jaban kugu dhahana يعني dabcan ilaa 35 ilaa $33 hadduu kugu dhahana dabcan way iibsanaysaa ay ka dhigan tahay ilaa $40 hadduu kugu dhawo okay waxaan isticmaali doonaa aniga linkigan hoose ayaan isticmaali doonaa labada link ayaan kusoo dhigi doonaa okay anaa kugu qori doonaa shirkadda domainka aan ka iibsaday kadibna linkigan ayaan ku dhufan doonaa dabcan waan isla arki doonaa okay sidan markay kusoo baxaan saaxiibayaal kadib waxaad samaynaysaa get started aad ku dhufanaysaa balse markii hore waa inaad linkiga kusoo dhufataa insha Allah si markaa discount ballaaran oo hesho linkiga markaas aad u dhufato kadibna get started baa kusoo dhufanaysaa okay kadib intaa markay kusoo baxdo halkan weeye halkan dabcan waxaad samaynaysaa kor ayaad u baxaysaa meesha waxaad ka dhiganaysaa 12 bilood ay ka dhiganaysaa 36 ay ka tahay 12 bilood ay ka dhiganaysaa saarka 36 ay ka tahay 2.75 way markaad saddex aad iibsanayso waa $2.95 weeyaan aan dhahay balse 12 bilood ay ka dhiganaysaa $4.95 soo maaha 12 bilood waxaa ka dhigi doonaa 2.75 ayaan ka dhigi doonaa muuqaalka la daawo insha Allah okay 12 bilood ay ilaawan balse linkiga markaa hoose saa ugu soo dhufato kan hoose aad kusoo dhufanaysaa balse kan marka hore tijaabi hadduu yani meeshan 12 bilood hadduu kaaga bilaabo 2.75 ku dhawo wada caadi iska iibso okay balse hadduu yani intaa ka badan ku dhaho oo waxa ku dhufanaysaa kan hoose aad ku dhufanaysaa okay kan hoose markaas aad ku dhufaso kadib waxaad dhahaysaa get started aad kusoo dhufanaysaa kadib halkan kore ayaad wax ka dhigaysaa 12 bilood halkan kore ayaad wax ka dhigaysaa 12 bilood 11 bilood halkan kore kadibna 4.95 dabcan la aragtaan waxaan ka dhigi doonaa 2. wax noocaasa select aad dhahaysaa okay select markaa dhaho halkan waxaad gashanaysaa domainkaaga aad gashanaysaa halkan ma aha ya halkan domainkaaga cusub ayaad gashanaysaa kadib markaa saa u gasho waxaan bixiyaa Ahmed Freelancer halkan waxa weeyaan .com haddii aad .com doonaysid haddii aad .net doonaysid balse waxa ugu fiican .com ayaan kula talinayaa kadibna waxaad dhahaysaa next ayaad dhahaysaa okay saaxiibayaal saa arkaysaan yani lacagta hadda waa $143 weeyaan eeg marka loo eego 12 bilood waxaan loo xisaabiyay bishii $4.95 balse total waxay isku noqotay $143 si discount aan u sameeyno ballaaran waxa aad samaynaysaa website marka saa usoo boqoto intaadan foomka magacaaga waxaaga buuxsan waxa aad tegaysaa halkaa kore halkaa meesha laga laabto website-ka aad tegaysaa halkaas aad tegaysaa okay halkan ayaan tegaynaa okay saaxiibayaal sida arkaysaan warqadii waatan inoo soo booday kaliya waxaanu tagnay halkan kore ayaanu tagnay kadibna saa arkaysaan waxaan la yiri special sign up over يعني in markaan la siiyay $2.65 inooga dhigay meesha qaaliga طبعا okay saa arkaysaan kadibna waxaan dhahi doonaa claim saving settings ayaan dhihi doonaa
okay bas arkaysaan warqadii dabcan way noo soo goday haddaan hoos u baxo dabcan qiimihii waxaan looga dhigay 167 dabcan okay balse yani waa 3 bilood marka ay tahay halkan ay imaanaysaa kadibna waxaa ka dhiganaysaa 12 bilood dabcan okay saa arkayso yani haddii mar warqada ku soo boodo oo okay 2.75 dollar baan looga dhigay halkan klik iska qaadaysaa dabcan waa iska qaadaysaa dabcan okay kadibna halkan kale ka sii qaadaysaa okay saa arkaysaan waxaana looga dhigay qiimaha waan soo arki doonaa marka kadib ayaa foomkaaga buuxsanaysaa saa arkaysaan saaxiib waxaan looga dhigay 33 dollar dabcan waa qiimo aad iyo aad u jaban dabcan 33 dollar looga dhigay hadda waxaan buuxsan doonaa magaca iyo waxaas dhan buuxsan doonaa insha Allah totalna waxaan looga dhigay 2.75 dollar meeshi 4 dollar ay kaliya waxaan sameeyay linkigan ayaan soo isticmaalay labada linki kan hoose soo isticmaal hadduu kan kore yani lagaga dhigo 2.75 haddii lagaga dhigo ama 2.95 waaba okay dabcan balse haddii lagaga dhigo ay kan hoose soo isticmaal insha Allah haddaan waxaan soo tijaabiyay aan soo arkay dabcan kan hoose soo isticmaal kadibna waxa ka dhigataa yani get started sii dheh kadib waxa ka dhigataa 12 bilood ka dhig domainka gasho kadib marka yani intaan buuxsan foomka meesha kore tagtaa farta u saarsaa warqada markay ku soo baxaa pop upta ku soo dhifo waxa ay ku noqon doontaa 33 dollar ayay ku noqon doontaa okay hadda waxaan gelin doonaa magaca ee waxaas uma buuxinaya si waqti marka waqti badan inaan uga qaadan okay saaxiibayaal sida arkaysaan dabcan markaan discountiga sameynay waxa aad buuxin doontaa intaa kadib yani foomkan aad buuxinaysaa sidaan discountiga sameynay dabcan waxa ka dhignay 33 dollar lacagta oo dhan 33 dollar ayaan ka dhignay saa arkaysaan halka markii hore ahayd yani dabcan halka markii hore ahayd hoos haddaan u baxno 143 dollar xitaa haddii kuwan tigta laga qaado yani laga qaado asaa laga qaado ay noqonayso يعني كتن إيه سجال طبعا إلى أركا كتن إيه سجال دور أنا غني طبعا بس هبكي عن استعمال محان صميني مركو بعد وحا عن صميني لينك كان أيام كسر فني لبضع لينكي متكملة ولي بكن هو سعر كسر فني طبعا مركو كسر فوتو ويب سايت كوكساكو كانوا كديب وحا عن صميني فون كاب سنسا لبيتهم بلا كريجا نسا كدمنا هالكن أسا أو تجي كليك باسينسا كدمنا ورقة يكون سوبنت ورقة أسا يكون فنيسا ديسكونتيجا وهدي أسوي استعمال شيء لينك كان okay inta kadib yani waxa sameynaysaa foomkan ay buuxinaysaa account information magacaaga iyo magaca baha aad ka shanaysaa halkan last name magaca awooga aad ka shanaysaa halkan business name ku waa magaca iska option hadda ganacsi leh magaca ganacsigaaga ka shanaysaa halkan country wadanka ayaad ka shanaysaa wadanka Soomaaliya oo kale ayaan ku noolahay aniga dabcan waxaan gashtay wadanka Soomaaliya طبعا waxay ka dhigan tahay haddaad Ethiopia joogtid Ethiopia aad ka dhiganaysaa haddii aad Kenya joogtid Kenya ka dhiganaysaa halkan street magaca xaafadaada aad ka shanaysaa halkan magaalada magaceeda aad joogtid Mogadishu aad ka shanaysaa ama magaalada marka aad joogtid halkan waxaad ka shanaysaa state-ka waad iska deynaysaa postal code waxaad ka shanaysaa 00252 aad ka shanaysaa yani dabcan postal code Soomaaliya ma laha taas oo haddii aad meesha eber aad ka dhigto aysan ku shaqeyn balse waxaad ka gashataa 00252 balse haddaad Kenya joogtid Kenya postal code ayaa leedahay waad ka shanaysaa postal code halkan waxaad ka shanaysaa phone number kaaga haddaad Muqdisho joogtid 61 haddii aad Somaliland joogtid 63 haddaad Puntland joogtana 90 ayaad ka bilaabanaysaa halkan emailka gmailkaaga fadlan iska sax mar walba gmailkaaga iska sax gmailka waa kan macluumaadka aad ku samaysanayso mar walba okay halkan waxaad samaynaysaa kuwana qaabkii markaan discount u sameeyay aad samaynaysaa insha Allah halkan ay tagaysaa warqada ku soo boqobta kadib waa ku dhufanaysaa kadibna kuwana ay taqaanaysaa waxay ku noqonaysaa 33 dollar discount waxa lagu sameeyay aad u balan insha Allah soo isticmaal markaa linkiga okay sa arkayso inta kadib halkan waxaad gashanaysaa card waxaan ku iibsan doonaa Mastercard waxaan ku iibsan doonaa Visa card ayaan ku iibsan doonaa balse haddii aad PayPal aragtay inaad ku iibsatid halkan pay by credit card halkan aad ku dhufanaysaa kadibna PayPal aad dooranaysaa PayPalna waad ku iibsan kartaa PayPal markaad ku iibsanaysid halkan waxba ma gelinaysid samid baad dhaysaa PayPalka ay ku geyn doonaa طبعا انت كدب بايبلك قلنا جيميل كيسا كدب باسورد كشنيسا ساسا لعد كدرتو طب بس هذا waxaan ku iibsanayaa card ama credit card halkan waxaad gashanaysaa card kaaga numberkiisa dheer ayaad gashanaysaa halkan waxaad gashanaysaa saddexda number oo gadaal kaga yaala halkan xilliga uu dhacayo hadaad aadan credit card kaada aqoon su'aalo kale visa card oo kale saan weeyaan dabcan dan waxay rabto okay image ka daan tago waa kana dabcan kaarka numberka dheer halkan aad ka shanaysaa kaarka numberka dheer halkan ka shanaysaa okay soo kale xilliga uu dhacayna halkan aad ka shanaysaa xilliga uu dhacay waa kana halkan date kana aad saxaysaa intaas u dhacaya leedahay kadibna halkan numberka gadaal kaga yaala aad ka shanaysaa
hadda waan qarsan doonaa kaarkayga. Sidoo kale qofkii doonaya in markaa uu sameeyo website qurux badan oo dhammaystiran sida markaa website-kan oo kale yani xitaa yani AdSense-ga uu markaba soo aqbalay oo maaragta yani aad iyo aad cajiib u ah runtii oo maaragta diyaarsan yani oo lagu sameeyo website aad iyo aad u habaysan oo markaa AdSense-ga kusoo aqbalay oo alaabaha ku promote garayso. waxaad igala soo xiriiri kartaa numberkan ayaa igala soo xiriirsaa insha Allah. number WhatsApp-kan labada number WhatsApp midkaad jeceshahay aad igala soo xiriirsaa insha Allah. Okay, haddana waxaan qarsan doonaa kaarkayga numberkiisa samayn doontaa. kadib saaxiibayaal waxaa dhihi doontaa submit, halkan ay ku qoran tahay dhihi doontaa. okay, saa arkaysaan waxay wataa payment. okay saaxiibayaal sidaa arkaysaan waa iibsanay dabcan yani domain hostingkii waa iibsanay dabcan. saa arkaysa warqadan ayaa kusoo bixi doontaa. okay, yani warqada markaa kadib waxaa dhehaysaa download receipt ayaa dhehaysaa. saaxiibayaal saa arkaysaan waan download garaystay, waxaan ku iibsaday $33. waxaas raacaysaa stepskii aan soo raacaysaa. kuma dhigi doono $59, kuma dhigi doono $80, kuma dhigi doono intaasoo dhan. dhalinyarta waxaan u sheegayaa yani waxaa jirta dhalinyaro mataqaana yani dadka u xiibinaysa domain oo keliya. walaalayaal domain oo keliya uma baahnidin. domain WordPress ma ku isticmaali kartid. waxaa u baahan tahay hosting iyo waxaa u baahan tahay waliba waxaa u baahan tahay sharing hosting wax loo yaqaan u baahan tahay. stepska aan soo maray markaa samayso ayaa waxaa lagu ogolaanayaa inaad WordPress isticmaasho. WordPress-ka shirkaduhu waxay kula jiraan yani shirkadaha domain-ka bixiya waxay kula jiraan heshiis ah. yani waxaan adduunku waa ganacsi. maadaama ganacsi yahay yani uma ogolaanayso kaliya inaad domain aad iibsatid aad WordPress isticmaasho. waa inaad isticmaashaa hosting, weliba aad ka isticmaashaa inaad lagu ogolaado oo loo yaqaano sharing hosting ama WordPress hosting aad isticmaashaa dabcan. markaas kadib ayaa waxaad isticmaali kartaa WordPress. muuqaal dhammaystiran ayaad ka baranaysaa qaabka waxaas oo dhan loo sameeyo. maadaama hadda muuqaalkan ku baranaynay stepska yani website-ka aad uga faa'iidaysan karto sida mataqaana domain-ka loo qiimo jabiyo iyo markaas sida loo promote gareeyo products-ka. okay, muuqaalkan oo dhammaystiran waxaad ka baranaysaa yani sida markaa website dhammaystiran loo sameeyo dabcan. dhalinyaro badan ayaa markaa yani waxaan ugu soo daray domain hostingka. dhalinyaro badan ayaa lagu qaaliyey domainkii hostingkii. muuqaalkan aad ku baranaysaa qaabka website-ka loo samaysto, qaabka loo install gareeyo, qaabka loo verify, qaabka website qurux badan loo sameeyo. okay saaxiibayaal sidaa arkaysaan waxaan kasoo hadalnay Google AdSense inaad Google AdSense kaga faa'iidayso saxaysiin aad kusoo barito inaad markaa shirkadaha waddankeena markaa waxay siisid domain hostingka. domain hostingka waa dhaafnay dabcan waanu samaysanay. muuqaalkii dhammaystiran waxaad ku baranaysaa website loo samaysto. muuqaalka ayaan soo tusiyey oo markaa YouTube ayaa booqanaysaa sida markaa waxaad daawanaysaa $5,000 lagu sameeyey 2 bilood gudahood dabcan. okay, kadibna yani muuqaalkaaynu sii wadan doonaa. waxaynu ka hadli doonaa yani barnaamijyada insha Allah. okay saaxiibayaal haddana waxaynu isla eegi doonaa website-yada haddii aad iska diiwaangelisid aad alaabahooda aad markaa yani aad mataqaanaa promote garanayso dabcan si markaa aad u hesho dakhli dheeraad ah oo markaa Google AdSense ka madax bannaan in markaa yani shirkadaha Soomaalida aad bannerkeeda soo qaadato oo aad saarto iyadana ka madax bannaan oo ah in markaa yani aad promote garayso. ama tusaale kale qof markuu soo raadiyo new mobile tusaale kale ama mataqaanaa wax ama shay markuu soo raadiyo kadibna Google uga soo helo kadibna adiga markaa commission-kaaga aad qaadatid. website-daas waxaa ku shaqaystaa barnaamijyadaas website-ka loo yaqaano Digistore, Clickbank iyo Amazon oo ah company markaa products-kiisu ay yihiin products aad iyo aad qaali u ah. yani waxaan ka wadaa qaali markaa kale yahay yani wanaagsan oo markaa yani sida computerada oo kale, alaabaha agabka yani ku shaqeeyaan guryaha mataqaanaa wax walba oo caalam ka mid ah oo markaa alaab aad ka helaysid Amazon. balse labadan company oo kale Digistore kale waxay isticmaalaan waxyaabaha weight loss-ka sida loo dhimaa sida wax noocaas loo sameeyo. waxyaabahaas ay mataqaanaa inta badan sokorta iyo cudurrada iyo waxyaabahaas ay promote gareeyaan alaabtooda. okay, haddaba saaxiibayaal website-kaaga waxaa ugu baahan tahay mar walba inaad u samaysato qayb mataqaanaa yani aad digitalka ama page ama qayb yani kamid ah pageska aad markaa yani aad alaabaha ku xaysisto. tusaalahan kale waxaan raadinayaa qof baa wuxuu iska leeyahay sidee jir u dhimaa oo kale. adiga markaa waxaad qaadanaysaa commission aad iyo aad u ballaaran oo gaaraya ilaa $60 ilaa $80 gaaraya aad qaadanaysaa. hadda website-yadan la arkayso yani alaabaha xaysiinaya yani waxay mataqaanaa ka diiwaan gashan yihiin labada company aan kusoo sheegay ee Digistore iyo Clickbank. balse inaga waxaa yani isticmaalnaa Digistore sababtoo ah kaas ayaa mataqaanaa na aqbalay ama Soomaaliya accept gareeya hal Clickbank accept gareeya. sidoo kale Amazon Soomaaliya way aqbashaa oo waad isticmaali kartaa alaabteeda waa promote gareyn kartaa insha Allah. muuqaal ayaan kasoo wada Amazon tusaalahan kale agabka alaabaha oo kale guryaha oo kale ayuu qof iska raadinaya. wuxuu raadinayaa oo kale mobile oo kale mobile Samsung oo kale ayuu raadinayaa
Amazon ayuu qof gelinaya maadaama uu og yahay in iyada lagu iibinayo dabcan saa arkayso qof walba oo markaa raadiya adiga hadda tusaalahan oo kale hadda yani website-yadan arka hadda website-kan oo kale waxa uu markaa ku leeyahay ka iibso Amazon ka iibso ayuu ku leeyahay website-yadan oo dhan saaxiibayaal waxay iska diiwaangeliyeen Amazon ay iska diiwaangeliyeen taasoo mar walba qofku uu faa'iido sameynaya gaar ah hadda tusaalahan oo kale maalinkii laga iibsado hal alaab ah ama bishii oo dhan laga iibsado 15 alaab isaga wuxuu haystaa faa'iido dheeraad ah taasoo aynan ku bixin wax lacag ah inuu sameeyo ama internetka uu ku xaysiiyey ama Google mataqaanaa ADS uu ku xaysiiyey ama Facebook ADS uu ku xaysiiyey kaliya article uu ka qoray saatan oo kale ah article uu ka qoray oo kale maaragtaa yani loo imaado hadda website-kana arkaysaan dabcan waxaas oo ayuu xaysiinaya waana website news ah ugu wada website news ah way Soomaalidana waxaynu isticmaalnaa kaliya waxaynu isticmaalnaa news un baynu kusoo bandhignaa warka dhacay halkaas balse waxay ka faa'iideystaan kaliya inay ka sameeyaan lacag Google AdSense balse kama faa'iideystaan inaynu lacag markaa ka sameyno digital marketing gaar ahaan affiliate-ka inuu isticmaalo Amazon, Clickbank, Digistore hadday hal mobile oo xaysiinaya ayuu kuwana ku soo hosgeliyay baleeg hal mobile oo xaysiinay ayuu saacadahaas waxaas dhan ku haddaan refresh dhoo imika hadana isbedelayaan dabcan okay muuqaal dhan ayaan ka sameeyay insha Allah qaabka markaa waxyaabahan loo sameeyo qaabka la iska diiwaangeliyo kuwa kalena insha Allah saaxiibayaal waa soo wada okay haddaba sidee u samaysan kartaa website noocan oo kale ah oo markaa aad ku promote garaysid alaabahaaga waliba anigoo markaa ku tusaya haddii aadan English aqoon xitaa adigoo aadan English aqoon in markaa article aad qorto oo maaragtay waliba article-kaas oo generate gareynaya la shaqeynaya macnaha Google dabcan xogta ayuu ka soo ururinaya Google dadku ay ka dhaheen kadibna waa uu ku qoraya adigoo markaa wax English aqoon kaas oo ku sameynaya titles kala duwan yani dabcan mobilada sawirada aad bay u fududahay ama alaabaha sawirada aad bay u fududahay dabcan okay kaliya markuu click siiyo qofkani uu iibsado qofkan commissionkiisi ayuu helayaa dabcan su'aalo kale wax ka soo qaadnaa maadaama ay tahay hindi ay tahay yani mataqaanaa yani lacagtan balse wax ka soo qaadaysaa mobilku kale waxay siinayay $100 adiga maxaa lagu siinaya adiga waxa lagu soo celinayaa $10 lagu soo celinaya marka waran imise ayaa maalinka iibsan kara imise article ayaa tusaale waxa qortay website-ka tusaale kale waxa looga faa'iideystaa haddii aad qortid ilaa iyo 500 oo article ilaa iyo 300 oo article 300 oo article ayaa waxa ay kugu jirayaan Google-ha 300 article maalin walba kamid ah dad baa soo boqonaya maalin walba kamid ah waa la soo raadinaya website-ka waa la soo taasoo ka faa'iidid inaad AdSense-ga lacag ka samayso inaad dhan kale affiliate-ka lacag ka samayso inaad mataqaanaa shirkadaha aad banner-kooda aad saarto in markaa yani adiga dhan u noqdo website-ka website lacag bas inagu intayna baxsanayna website-kii baan samaysanayna bas waan isku daynaa taas ma aha faa'iido markaas qof wuxuu leeyahay saaxiib website-keeni waa kaasa taas ma aha daba saas hadaa tahay waxba ka mees sirta kaliya ee qarsoon oo markaa internetka lacag kaga samayn karo qof walbana uu ku leeyahay waxa weeyaan waa joogtiin walaalow haddii aad waxaan joogtayso wallahi waxa aaminsanahay haddii 2 bilood ama 3 bilood aad joogtayso inaad farahaaga gacantaada aad dhunkan doonto aad dhihi doonto wallahi maalinkaas sameynayay ma ku khasaarin insha Allah soo kale saaxiibayaal waxaa jirta yani course aan ka sameeyay qaabka markaa website-ka loo samaysto dabcan qaabka markaa website-ka loo samaysto muuqaalkan ayaad ku baran doontaa home ayaad tagaysaa channelkeena ayaad ku dhex dhufanaysaa kadibna home ayaad tagaysaa qaybta aad ku dhufanaysaa waa course soconaya hal saac 7 daqiiqo soo kale insha Allah koorsooyin aad iyo aad u fara badan oo aad ka heli doonto oo ku cajabiyana insha Allah waan kuu soo wadaa saaxiib haddii aad nagu cusub tahayna waxaan kaa codsanayaa inaad channelka subscribe saarto muuqaalka like saarto soo kale waxaa jirta course horey aan uga hadlay oo ah sida markaa looga faa'iideysto Google AdSense sida markaa Google AdSense loo codsado sida markaa website loo samaysto dabcan waaba kana yani muuqaalkan ku baranaysaa website loo samaysto aad iyo aad u qurux badan dabcan soo kale waxaa sameeyay sida markaa xayisiinta AdSense-ga loo saarto yani sida article loogu qoro sida post loo qoro koorsooyinkaas aan soo bixiyo ah waxay ku jiraan playlist-ga gaar ahaan waxaad ka helaysaa sida website xayisiinta loo saarto waxaas dhan waa maxay WordPress qaybtan ay ku helaysaa balse haddii aad doonayso inaad website dhammaystiran aad samaysato muuqaalkan ayaad ku baran doontaa insha Allah website aad iyo aad u dhammaystiran ayaynu baranaynaa soo kale waxaan leenahay saaxiibayaal Telegram channel ayaan leenahay Telegram channelkeena waxa aad ka soo gali kartaa qaybta markaa yani aad igala hadlayso markaa yani commentiga insha Allah comment wanaagsan soo bixiya insha Allah inta badan yani dhalinyarta waxay moodaa qaarkood inay maarta yani dadku inta badan isku mid ma aha oo qaar wanaagsan ayaa jiro waxay ku soo qorayaan comment wanaagsan dabcan
qaarkoodna yacni dad mataqaanaa waxaa isleedahay markaad commentiga akhriso dad iska xanaaqsan dabcan insha allah mar walbana waxaa fiican inaad qofka walaalkaaga wax wanaagsan aad u qorto ayaa wanaagsan dabcan waxyaabahan aan kuu sheegayn ma aha waxyaabo markaa yacni qof waliba uu kuu sheegay xitaa qofka soomaaliga ee markaa website-ka ku shaqaysta sirtan kuma sheegayo dabcan maalin walba wuxuu kuu soo qorayaad akhrisataa oo waa tagtaa waa booqataa wararkiisa sheekooyinkiisa waxa uu kuu soo qorayo balse qofkan waxa uu ku daalayo maalin walba yani dabcan kuu sheegi maayo balse anigu waa kuu sheegaya maadaama ani kamid ahay dadkaas marka aanan ahayn qof aan xaasid ahayn dabcan insha allah sidoo kale saaxiibayaal haddii aad nagu cusub tahayna muuqaalka aad daawanayso fadlan muuqaalka like saara insha allah hadduu alla idmo fursadahaas aan sheegtayna ka faa'iidaysta sidoo kale dhomainkana insha allah yani dhomainkka dabcan muuqaalka daawo si fiican u daawo qaabka discount u samee insha allah يعني هذول لأنه سوق الهدي أسمين وإذا يعني إلى السحي إن شاء الله وكعاوننا هذول لأنه نمبر كان إلى السحي أوكي سوق الهدي أدون السحب الويب سايت هير عالمية أنا كوسميو ومركا عجيب أدي مالك يعني أدي وبوكت إن شاء الله إلى السحر إن شاء الله ويب سايت أدي قرح بدن أو بلوج أو مركا أتقرتو أرتكلسكا سي قرح بدن مارتا يعني أدو صوب ديجاتو إن شاء الله أيان مارتا mataqaanaa ku sameyn doonaa sidoo kale waxaan ku bari doonaa qaabka markaa articleska loo qoro weliba diyaarsan iyadoo taasu ay tahay in markaa yani qaabka markaa websitekan kusoo tusiyo kale uu qorayo adigoo markaa luqada ingiriiska aanan si fiican u aqoon dhammaantiin waxaan leeyahay waa inoo muuqaalka dambe insha allah sidoo kale fadlan haddii aad nagu cusub tahay saaxiibayaal channelkana subscribe gareeya insha allah muuqaalkana like saara